السلام عليكم صاحبيال ku soo dhawaada muuqaal kale muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sida aad ku baran karto aad ku noqon karto web developer iyo sida aad ugu shaqaysan karto hadii aad lahayd si xor ah freelancer ama inaad shirkad u shaqayso balse ugu horreyn waxaan ka codsanayaa inaad channel ku soo biirto hadii wali ku soo biirin muuqaalka like aad saarto si share gareyso wixii talo iyo tusaalahan comment-ga igu reebto okay website-da waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah client side oo sidoo kale loo yaqaan front end iyo server side oo sidoo kale loo yaqaan back end front end oo ah qaybta ku muuqanaysa marka website-ka soo booqato tusaalahan Facebook YouTube iyo website-yada kale la midka marka soo booqato qaybta ugu horeysa ku soo muuqanaysa qofka yaqaan sida loo dhiso waxa la yiraahdaa web designer back end oo isna ah qaybta dambe ee website-ka oo ay shaqooyinka ka socda ay ka qarsoon yihiin ama laga yaabo inaad aqoon qaabka u shaqeeyaan yana qofka develop gareeya ama yaqaan sida loo dhiso waxa la yiraahdaa web developer labadooda waa front end iyo back end sida loo dhiso qofka yaqaan application dhameystiran loo sameeyo qofka yaqaan waxa la yiraahdaa full stack developer okay marka aad rabto marka inaad barato sida loo dhiso front end oo aad noqoto web designer barashada web design-ka waxa fiican inaad ka bilowdo ama type inaad ka bilowdo HTML iyo CSS HTML iyo CSS labaduba ma aha programming language waana waxa kaliya website-ka la'aantooda aan shaqeyn karin website-yada caalamka oo dhan 100% HTML ay ku dhisan yihiin labadooda marka barashadooda aad ay u fududahay marka aad barato marka waxa laga maarmaan ah in aad barato toolska iyo waxyaabaha kale ee ku dul dhisan CSS tusaale ahaan Bootstrap iyo Sass Tailwind iyo waxyaabaha kale la midka ah inta marka aad barato waxa iyana laga maarmaan inaad ku darto aad barato JavaScript marka front end iyo back end way ka shaqeysaa JavaScript waxyaabaha ay qaban karto waxyaabaha ku fiican tahay iyo waxa ay tahay muuqaal aan ku sharaxay baa jira linkigiisa description-ka ayaan soo dhigay JavaScript marka waxa ugu baahan tahay qaybteeda front end-ga framework-iska JavaScript front end-ga loo isticmaalo waxay kala yihiin Vue, React iyo Angular waxaana ugu wanaagsan React iyo Angular sababtoo ah React waxa iskale ama soo saartay Facebook shirkadda imika Meta loo bixiyay Facebook Angularna waxa soo saartay ama gacanta ku haysa Google maadaama markaasi shirkado waaweyn ee labadaasi barnaamij gacanta ku hayaan maadaama marka labadaasi barnaamij shirkado waaweyn ee gacanta ku hayaan way ka fiican yihiin barnaamij kale loo yaqaan Vue waxyaabaha soo marka soo barato kadib waxaad u baahan tahay in aad aqoon u leedahay meelaha laga helo resource-ka iyo waxyaabaha wax lagu dhisan karo tusaale ahaan icons-ka sawirada PNG-yada ama sawirada free-ga iyo waxyaabaha kale dhisanka lagu xoojiyo waxyaabahaasi oo dhan iyo resource-ka isticmaalaan web designer-isku muuqaalan ku sharaxay baa jira muuqaalkaasina linkiisa description-ka ayaad ka helaysaa okay intaas hadan kaga gudubno marka qaybta front end-ga back end-ga markaan isla eegno back end-ga waxaad ku dhisi kartaa programming languages badan adiga ayaan kugu xiran tahay ka dooranayso aad baranayso inkastoo marka aad programming language aad baranayso lagu saleeyo waxyaabaha awood u leeyahay programming language-kaasi inaad ku shaqaysan karayso iyo waxyaabo kale badan programming language-ka marka back end-ga lagu dhiso waxa kamid ah tusaale ahaan Python oo kale Python marka waxyaabo badan oo ay qabatay ayaa jira muuqaalan ku sharaxay baa jira linkiisa description-ka ayaad ka helaysaa qaybta marka Python aad ku dhisi karto back end-ga waxa weeyaan framework-iska loo yaqaan Flask iyo Django sidoo kale waxaad adeegsan kartaa PHP waa luqad gabi ahaanba loo sameeyay in lagu dhiso qaybta dambe ee website-yada PHP marka waa all class marka si loo eego security-geedana xogaa waa iska yarxin yahay balse waxaa jira frameworks aad iyo aad u awood badan oo PHP-da lagu sii dululsay framework-yadaas waxa ugu caansan Laravel oo framework aad iyo aad u wanaagsan dhanka security dhan walba ku wanaagsan sidoo kale waxaad ku dhisi kartaa programming language-ka loo yaqaan C# iyaduna waxyaabo badan ay qaban kartaa qaybta marka web development-ga waxa lagu dhisaa framework-geeda loo yaqaan ASP.NET sidoo kale programming language-ka aad ku dhisi karto qaybta dambe website-yada waxa kamid ah JavaScript maadaama ay niri waxa lagu dhisi karaa front end-ga iyo back end-ga qaybta marka back end-ga waxa loo adeegsadaa runtime engine-ka loo yaqaan Node.js iyo framework-ga sida ku sii dullisan la yiraahdo Express maadaama marka ay aad u badan yihiin programming languages-ka aad isticmaali karto oo dhan inta marka aan kula wadaagay imika waa inta ugu wanaagsan framework-yada marka imika aan ka soo sheekeeyay programming languages-ka aan ka soo sheekeeyay waxaad ku dhisi kartaa waxa loo yaqaan Rust API kulli waxaan filayaa wuxuu u baahan yahay in muuqaal gaar ah lagu sharaxo balse adigu waa waxa la taxluuqo sida loo dhiso back end-ga sidoo kale marka back end developer marka aad noqonayso waxa laga maarmaan ah in aad wax ka taqaano databaseska marka waxa loo qaybiyaa database-yada marka waxa loo qaybiyaa laba group oo waaweyn oo kala yiraahdo SQL iyo NoSQL marka waxa ugu caansan MongoDB oo badanaa loo adeegsado Node.js programming languages kale hadda doonto waad ku adeegsan kartaa SQL kana waxa ugu caansan SQL Server oo loo adeegsado ASP iyo guud ahaan C# oo dhan iyo MySQL oo iyadana loo adeegsado PHP iyo framework PHP-da ku dullisan loo yaqaan Laravel
okay markaan isla eegno waxyaabaha aan ka soo hadlay oo dhan waqtiga aad ku baran karto waxyaabaha ma aha waxyaabo aad u adag salaam marka aad doonayso inaad barato full stack oo aad noqoto full stack developer waxaad ku baran kartaa ilaa 6 bilood marka aad rabto inaad barato back endiga ama front endiga mid ahaan waxaad ku baran kartaa ilaa 3 bilood marka waxyaabahan wax adag ma aha kaliya waxa ku xiran tahay waqtiga aad geliso fahankaaga iyo adkaysigaaga marka intaas oo dhan soo barato marka waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku shaqaysan karto haddii aan lahayd inaad si xor ah u shaqaysato freelancer aad noqoto iyo inaad shirkad kale u shaqayso haddii aan ku horeeyo marka aad doonayso inaad shirkad u shaqayso waxa laga maarmaan ah in waxyaabaha aad soo baratay marka hore aad projectiyo ku dhisto projectiyadaasi ha noqdaan kuwa dhexdhexaad ah kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba sidoo kale waxa laga maarmaan ah in aad waxyaabaha aad dhistay oo dhan aad samayso portfoliogaasi aad ku kaydsato portfolio marka macnihiisu waxa weeyaan waa online resume ama online CV website online CV oo aad ku kaydinayso waxyaabihii projectiyadii aad dhistay oo hadhowdina shirkadaha linkiga inta u dirto ay ka daalacan karaan kadibna shirkadahaas ay ka daalacan karaan waxyaabaha aad awoodo iyo waxyaabihii aad dhistay oo dhan portfolioga marka waa qodob aad iyo aad muhiim u ah marka tahay web developer in aad samaysato okay marka aad doonayso marka inaad noqoto freelancer waxa wanaagsan inaad xoog aad saarto WordPress iyo PHP gaar ahaan framework-geeda loo yaqaan Laravel waa framework-ga ugu badan oo framework-ga shaqooyinka ugu badan la soo xayisiiyo freelancing-ka tusaale ahaan marka aad eegto meelaha lagu soo xayisiiyo shaqooyinka freelancing-ka ee web development-ga waxa ugu badan la soo xayisiiyo waa Laravel framework-ga PHP iyo Laravel iyo WordPress kasoo kale waa application barashadiisa aad u fududahay waqti kooban aad ku dhisi karto application ama web applications isla markaana ku fiican in aad freelancing oo kale marka freelancing waa topic aad u ballaaran u baahan muuqaal gaar ah in laga soo sameeyo haddii aan lahayd sida shaqooyinka freelancing loo raadiyo meelaha lagu soo xayisiiyo qaabka aad isku diyaarinayso waxyaabaha ay tahay inaad xoog saarto macaamiisha markaad hesho qaabka aad ula dhaqmayso waxyaabahaas oo dhan iyo qaabka adigu aad naftaada ugu sameynayso macaamiil qaabka aad u heli lahayd waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin muuqaal gaar ah in laga sameeyo marka kuma fogaan doono marka muuqaalka maanta intaas ayuu ku soo koobayaa haddii aad rabto inaad wax ka ogaato qaybta dambe website-ka back endiga qaabka u shaqeyso muuqaal aan ku sharxay baa jira linkigiisana description-ka ayaan idin soo dhigay sidoo kale JavaScript haddaad doonayso waxyaabaha ay ku fiican tahay iyo macluumaad badan oo ku saabsan iyana muuqaal aan ku sharxay baa jira linkigeedana description-ka ayaan idin soo dhigay Python oo kale muuqaal ayaan ka sameeyey waxyaabahaas oo dhan description-ka ayaad ka eegi kartaa linkiyadooda haddii markaa muuqaalkan daawashadiisa halkan aad ku soo gaadhay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdo nagu soo biirto muuqaalka like aad saarto siina share garayso wixii talo iyo tusaale ahna commentigaad igula wadaagto muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno sida ay nabadgelyo